بسم الله الرحمن الرحيم وعشركين امتحانها لغة HTML5 عشركين waxaan ku baran doonaa sida boggaaga ugu soo dir lahayd ama elementskaaga ugu soo dir lahayd style sheet waa maxay haddaba style ayaad isweydiinaysaa styleku wuxuu ku qeexayaa sida elementkaaga looga soo bandhigayo shaashadda warqad ama nooc kale media waxaa jira saddex nooc oo loogu soo diro styleka documentkaaga HTML5 ugu soo diri kartid ayaa jira nooca koowaad waxaa la dhahaa inline styles baa la dhahaa HTML-ka ayaad ku soo daraysaa attribute of style kabacdi markaa ayaa wax ka bedeli kartaa waynu eegi doonaa waxaa kale jirta nooc la dhaho embedded style adoo isticmaalaya tag la dhaho style ayaad xagga sare heerka ayaad ku qoraysaa kabacdina halka ayaad documentigii wax ka bedelaysaa nooca kale saddexaad waxaa la external style sheet ayaa la dhahaa waxaad isticmaalaysaa linki wax la dhahaa isticmaalaysaa markaasaad ku xidhaysaa bog kale oo CSS file ah markaas maadaama aynu HTML baranayno oo haddeer khaliya waxaynu eegaynaa qaybta ugu horeysa ee inline style sheetka ayaynu ku baran doonaa casharkeenan haddaba styleku waa rule ku qeexaya documentiga qaabka looga soo bandhigayo web browserka markaad isticmaalaysid HTML-ku wuxuu leeyahay wax la dhaho style attribute sidaynu hore usoo sheegnay waa kan style ayaad u horeysanaysaa kabacdina property oo wixii wax laga bedelay hadday background tahay hadday fontiga tahay kabacdina qiimihii lagu bedelay ayaad sameynaysaa property-ga value labaduba CSS weeye marka hadda tusaale ahaan marka body-ga kale midabkiisa bedelaysid waxaad dhahaysaa body style ayaad ku soo daraysaa la dhaho attribute of style kabacdina waxaad qoraysaa background oo ah property-ga iyo qiimihii oo ah gray ama h1-ka ayaad bedelaysaa colorkeeda oo ka dhigaysaa qiimaha bal aynu eegno waxaanu sameynaa marka ugu horeysaa waxaanu soo keenaa subline text ayaynu double click siinaynaa waxaynu copy garaysanaynaa intan ayaynu copy garaysanaynaa bogga hore ayaynu intan ku copy garaysanaynaa kabacdina new folder ayaynu leenahay ku paste garanaynaa halka waxaan u bixinaynaa intan aynaga qaatir waxaan dhahaynaa save as styles ayaynu u bixinaynaa styles.html save ayaynu leenahay xaggan marka ugu horeysa waxaan ku darnaa waxa dhaho h1 html styles ayaynu leenahay kabacdina waxaan dhahaynaa hal paragraph ayaynu sameynaa wax tusaale intaasoo kale ayaynu save garanaynaa marka haddaynu folderkeennii aadno meeshu inoo yaallo oo ah folderkan oo aynu ku eegno styles right click siino kabacdina aynu ka furno Google Chrome wax ku soo baxay boggan khaliga qeexan marka waxaad isweydiin kartaa qaabka aad ugu soo diri kartid background-ka kale oo bedeli kartid marka waxaan ku horeysanaa style ayaynu leenahay kabacdina equal ayaynu leenahay labada waxay furnaa quotation kabacdina waxaan leenahay background underscore color color labada dhibcood kabacdina waxaan dhahaynaa haba noqdo green oo kale save ayaynu leenahay haddaynu soo kicino oo refresh garayno background colorka muxuu isu bedelay green waxaad kaloo ka dhigi kartaa midabo kala duwan red baa ka dhigi kartaa blue ayaad ka dhigi kartaa haddaynu save garayno blue waxaad kaloo samayn kartaa waxaad ka dhigi kartaa oo kale light blue ayaad ka dhigi kartaa midabo fara badan ayaa jira wax badan ayaa ku taraya ayaa jira so header-kana waxaad kaloo ku samayn kartaa style inaad tirahdid equal waxaad tirahdid color ha la mid ahaado white kabacdina waa convert waxay noqotay white ayay noqotay kan laftigiisa waa bedeli kartaa color ayaad kusoo diri kartaa inuu midab ahaado waxaad kaloo kusoo diri kartaa attribute inaad tirahdid style midabadan ayaa isticmaali kartaa la dhaho hexadecimalka ayaa isticmaali kartaa mitalno kale waxaa dhahaysaa ff9 oo kale ugu taagan huruud baad dhigi kartaa kabacdina huruud ayay noqonaysaa waxaad kaloo samayn kartaa body-ga halkan oo kale light blue meeshan ka dhignay waxaanu ka dhigi karnaa calaamadda hashka iyo oo kale midabka dambasiga ah waa hexadecimals ayaa la dhahaa CSS-ka markaynu baran doona ayaynu ku baran doonaa insha allah so qaabkaana waa isticmaali kartaa waxaad kaloo isticmaali kartaa inaad body-ga oo kale fontigiisa bedeshid oo aad tirahdid inta markaa tirtid inta oo kale aad tirahdid meeshan fonty underscore family farta nooceedu waxay la mid noqdo farta la dhaho Verdana
kabacdina farta qoraalka oo dhan ayaa isbedelaysa bodiga oo dhan fartiisa oo dhan ayaa isbedelaysa sorry kan midabkiisa ayaynu white ka dhignay kana waxaanu ka dhignaa blue oo kale kana waxaynu ka Fardana marka farta oo bodiga oo dhan ayaa isbedelaysa barashada HTML5 kana waxaynu ka dhignaa midab yara dambas DDD sifir weyn noqon harta Fardana haddaad inta ka dhigi kartaa Arial Times ayaad ka dhigi kartaa wax badan ayaad ka bedeli kartaa farta nooceeda waxaad ka dhigi kartaa Tahoma ayaad ka dhigi kartaa farta Facebook isticmaalo noocaas oo kale marka wax badan ayaad ka bedeli kartaa laakiin styleska waxaa loogu talagalay CSS-ka inaad ku isticmaasho intooda badan laakiin adoo bodiga jooga ayaad wax walba bedeli kartaa waxaad kala bedeli kartaa font size ayaad bedeli kartaa font size-ka ayaad halkaa waxaa dhacaysaa font size hala mid ahaato mar walba 14 ama waxaa dhacaysaa 18 pixel ayaad leedahay so font size-ka bodigana wax 8 saas u noqonaya u yaraanaya bodiga oo dhan ama H1-ka ayaad kaligeed font size ku soo dari kartaa aad iyo aad ayuu mahadsantihiin bal tijaabi wax fara badan oo styliska ka mid ah adiga ayaan kuu daynayaa